maanta mawduucan wuxuu daaran yahay maymay iyo maxaatiri waa integrationka labada af may iyo maxaatiri laakiin unwale eraane jinka konfurkiimbi adeegna kaatee coming up galno barnaamijkan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيقوا أسد آدم فراي ميلي سنو فيرسداي تانا أسد فراي ستوديو تواك اللانشالة جرى بوي ماء مايغا أبي بهدلي أنا بهدلي أفكا مايغا سومالي دو ودد وناكسا ويجعليه هنا أف مايغا أي برتان وايو وافكو دي ciyaal suuqiinta kama hadlayo laakiin Soomaalida caafimaadka qabta oo laga yaabo inay u noqdaan dalkan hormuud baan ka hadlayaa laakiin kama hadlayo sida kan oo kale ama kan maxan clipkaygu ugu khasaarinaya iga reeb waxaa jirta markaa dad fara badan oo Soomaaliyeed oo dabeecad ka dhigtay inuu eraan markeeda af Michael la hadlo oo kale af Soomaali ugu la hadal afka Michael kaliya waxa ku hadla dad Soomaaliyeed Ethiopian kuma hadlo Kenyatin kuma hadlo waxa aan u soo qaatayna wal kalama may waha may iyo maxaatiriba dadka diriska leh ama dawlado diriskini leh waa Ethiopian iyo Kenyati maxaatiri Kenya walan ku hadale laakiin dad Kenyati ee mayka af maxaatiri ka hadlaya dad Kenyati of maxaatiri ku hadlo waa la helayaa dad Ethiopiana oo Ethiopian nima sheeganayo oo Soomaali Ethiopian nima ku faanayo laakiin wadanahan dawaba taqaanaanba NFD iyo maxay ahato Soomaali galbeed iyo maxay ahato meeshan kale ii sheegeen Gaarisa iyo dhulkaas dadka degan Kenya bay sheegtaan Soomaalidu xataa way qaarkood way nacban yihiin qariirad ahaan markii la fiiriyana they already gumeystii wixii ka dambeeyay kuwaas way tageen waa maxay yihiin dadkaas maxay yihiin waa Soomaali laakiin maxay ku hadlaan afkooda muxuu yahay waa Soomaali laakiin wadankooda waa Kenyati laakiin majaro qof maymay wadan maymay loo hadlo oo Soomaali ahayn soo marka arinkaas waan ka saxayaa hadii qof maymay ee la hadla walaal waxa tiraahdaa ma fahmayo afka maymayga ee ugu la hadal af maxaatiri so that's great qodobka lamaad may waha jinka konfurkiimbi adeegna kaati ya qofka may la eray hadii uu uur nuguli adeeg mudubaw macnaha annaga waxaan noqonay afkeeni baan waxaan u dayacnay af kale afkeena hooyo iyo afki iskuulkan raana annaga afki iskuulka noo keenay waa afka maxaatiriga laakiin afkaana hooyo waa af maymay waay soo marka ha ka xumaanin aniga aad ii jeedid afka mayga waa afkayga hooyo waay hooyaday baa ku hadashaa waa lagu soo habay ma fahantay laakiin afka maxaatiriga waan bartay adigana waad baran kartaa afka maymayga laakiin mafadaasa inaad barata suluuyni ka hayta cunsurinimi ka hayta laakiin dadka maxaatiriga ka hadla oo dhan cunsuriyaalna ma dad xogna ma dad fara badan oo waxa jira oo maxaatiriga oo jecel afka maymayga inay bartaan hadda inaa saaxiibanayo kale magaalada aan joogo maalin walba dhigtuuna dhax dhigtaa markaan anaga hadlayno dhigtuuna dhax dhigtaa si uu eray iyo 2 iyo 3 iyo 4 uga barto war hadii nin Ingiriis ama nin Amerikaana dhalinyaro Soomaaliyeed ay bareen af Soomaali شير بنانا صاحب كنديان باناي half Canadian half Caribbean in حدانا wad arkayso oo Soomaaliga kaaga badanaya adiga oh my goodness ku soo baraya Soomaaliga waa caadi wallahi markan waxaan ka arkaynaa meeshan inay tahay inaa luqadeena lagu dhaganaado luqadeena hooyo Soomaa yaasino aad baa ilaahay baa runtii jecel Soomaaligayga ayaa ka fiican Ingiriisiga hadaan wow maxaa diidaya adoo Soomaali ah inaad baratid afkaagi Soomaaliga ah inaad baratid maxaa diidaya wax diidaya ma jiraan laakiin waxa kugu jirta cunsuriyad ah afkan dhinac isaga riix laakiin ma riixmayo waa af dhan oo ay ku hadlayaan 3 milyan 4 milyan oo Soomaali ka dhawaad yamay ka hadlaasa af maymay ka hadlaasa I'm not sure numberkaas ma hubo numberkaas aniga ma hubo laakiin waa sida la yiraahdo weeyaan laakiin aniga ma hubo waa sida la yiraahdo ay koytay هاي رالي هذا صاحبك باي سو عي مركا فضلا
haddii af maymay adigu aad taqaanid oo af maymay aad ku hadli kartid haddaba aniga talaan soo jeedinaya af maymay markuuna ka hadalaanaa markuuna maxaa tiri ka hadalaanaa afkaanu waa af Soomaali waaye ana millihi haddaad maymay tahay ha ku hadlin maxaa tiri maya ma dhahayo waayo aniba af maxaa tiri waan ku hadlaa af maxaa tiriga iyo maymayga laakiin si una inka sameeyay integration isdhaxgalan sameeyaan waa isdhaxgalin karnaa mar maxaa tiriga ka hadla korna marna maymay aan ku hadli karnaa si labadii luuqadood ay u noqdaan marka af dhalinyartu ay wada fahmaan kow afkan horta waxaa ka seexday awoyaasheen baa ka seexday soo marka annagana hadda waxaan u egnahay kuwa ka sii seexanayo weliba hadda waxay maraysaaba in laga dhigtaba maad iyo wax lagu qoslo waxaad arkaysaa cunsurinimada waddankeena ka jirta waxaa ka mid ah dad xamarroog warsiinka dheer ilaa iyo saakow af maymay baa looga hadlaa u sheega haddaba haye adiga waxaa tiraa naagtay xaaskay ninkaan wuxuu u dhahaa afadey xabadey ninkaan wuxuu dhahaa xaaskayga haye ani waxaan dhahaa marwadayda okay meeshii uu jooji salaad maxaa ku ka wax kala astaan masmay asna xaaskiisa habartay wa hooyadiis habartay sagaala iyo afka Soomaaliga waxaa la yiraahdaa maay iyo maxaa tiri iyo maxaa tiri Soomaali adiga sidaas maano waa isku af isku dhaqan waa isku caado hadda habartay naagtay way miya mayga ha naagtayna maxaa way laakiin nin reer xamarweyna ah oo isaga laftigiisa markii waqooyiga uu tago kale abow maxaa waaye maxaa tiri markuu leeyahay kuwa waqooyigana way la yaabayaan isagina maymaygii buu la siyaabaya marka anaga xadaarad xumo aad u xun baa ina haysata laakiin aniga taladayda waxa weeyaan haddii ada maymay ata may iyo maxaa tirin adag hadala korta fadlan wala kaliya ada sameey korta may waha haddii qof maxaa tiri aad saaxiib la tahay afkaaga hooyo ha ka xishoonin on ku xishootay afka adile fahanti af maxaa tiri walna bari wal niisheen iskoolka niisheen qof ehelkayga halkaan maraya imana soo salaamaya ka waran guriga hoostiisa maraya I'm very sorry hadhow aan ku qabsanaya marka afkan waa afkii annaga nalagu dhalay waaye afkeena hooyo waaye af maymayga aniga af maxaa tiri maaha afkayga hooyo af maymay baa afkayga hooya laakiin maxaa tiriga waan bartay baradii adiga intaa dhihi lahayd muxuu ku hadlahayaa war af maymay af Soomaali waaye baro isku day haddaadan fahmayna qofka ka codso waxaa tirahdaa walaal ma fahmo afka maymayga ah ii fasir fahantay marka dadka maymaygana ma sheegay war haddii qofka saas ka era xataa fadlan iska day inay af maymayka barta haddii aad saaxiibatiin maymay maxaa tiri maymay maxaa tiri qofka marka luuqadii marka waxay noqonaysaa luuqad Soomaalida oo dhan wada taqaano laakiin annagii maymayga ku hadlayna waxaan u ordaynaa inaan maxaa tiri ku hadalno waliba maxaa tirigiina aan baaba ka dhigno mararka qaar kood marka aniga waxaan soo jeedin lahaa haddii aad maymay ata ka hadal af maymay maxaa tirina ka hadal asxaabtaada marna maymay kula hadal marna maxaa tiri kula hadal that's the best way luuqadani ay ku noqonayso luuqad Soomaalida oo dhan ay wada bartaan oo ay ku wada hadlaan annagana taasaan farxad gelinaysa marka taladaydu waxay tahay haddii aad af maymay awoodid ma ku dhahayo may iyo maxaa tiri isku dhax qaso may maxaa tiri ka dhig maxaa tirina maymay ka dhig tusaale ahaan maxaa waaye an artoy aab calayka walib wahde laakiin marka rabtina maxaa tiri isticmaashid waxa weeyaan de caadi waay iska dhaxdar soo marka may helaan marka dad far badan oo maxaa tiri oo maymayga ka hadla haddaba jaraan fahantay war dadka mayga ku hadlo dadku waxay u maleeyaan inay digil iyo mirifli kaliya ay yihiin war digil iyo mirifli kaliya afkan kuma hadlaan Soomaali far badan baa ku hadasha haddii wal fahmaasan waay Soomaali far badan baa ku hadasha maxaa tirigana kuma hadlaan kaliya dadka maxaa tiriga ah ee dadka ugu badan ee maxaa tiriga ku hadla waa dadka maymayga ah waay soo marka aniga waxaan soo jeedin lahaa please stop discrimination ka Georgie af Soomaali waa af Soomaali mada hortiisna mangmal galaw adoo may dhihin maxaa tiri ma dhihaysid haddii marka afka aadan aqoonin oo aadan rabin inaad baratid waxay noqonaysaa kaaga ku hadal kan maymayga amarkuu kula hadlana hadaa yaqaana saad isku xalinaysid annaga waxba nagama gelin annaga qofka maxaa tirigaan waan fahmaynaa mayna waaba afkeenii hooyo maxaa tiri marka waxaad u malaysaa inuu afkayga hooyo yahay marka anigu maxaa tiri ku hadlayo kale afkayga hooyo inuu yahay miyaad u malaysaa maaha walaal wax badan baa kaa maqan dhulna baro dadna baro wali ka higtee dadka maymayka ka hadalaw wali la eraye tubaaka lansha la jara boy ma
معناها محاتري ضدك محاتري هاي يمي أنني قصبا إنه ماي برن محاتري نيكل هذا مركز أنت ونكرفض مركز دم قار كان برضايا لكن ضدك ماي هاي مفضايا إني أشوف محاتري بران سو marka maamada suuranahan qaadi ma tobaa kala shal jar boy ma hadii aan u fasiro boy macnaha boy waxa way b o y y ya boygi wiilka ha ingiriiska ma boy waxaan dhahnaa anaga macnaha in waxaan ma haleysna wax fiican tobaa ka ninkeeda la socdo tobaa ku xun way ma dhigi kartid isaga ba dultaagan uu iibinayo maanta oo dhan uu ku sharaxaya ma fahamtay wuxuu ku leeyahay waxaan way fiican tahay saan waaye duumaday ka qaadaysaa waxyaabo aadan weligaa ku fikirin baad ku fikiraysaa markaad baashan aad saaratid in shaarbaha uu ku leeyahay uu ku qurxinaya soo marka maaymaayga marka waxaa la yiraahdaa tubaaka lansha la jara boy ma tubaaka ninkeeda la socdo boy maaha ma fahamtay ma xuma soo marka dadka maaymaayga ah waxaan u soo jeedinayaa war haddii aad maaymaay iyo maxaatir isla kasaasa please afkan waa afkaagii hooyo ay ada aan hayno koran qaado koo sugaasa markii ada afka markii maxaatir ka hadla ada dhuumadaas farxad maxaatir markii haskati toosistoona hanagada soo ada wahaweeye ada lata wariya George wariya afkan dadka bar dadka maxaatiriga afka way jecel yihiin afka Soomaaliga way jecel yihiin laakiin kuwa ciyaal suuqin oo kuwan oo kala ah okay naag balaq leh marbi naag shuluq ah marbi war hooyo balkan sheeg طب انت بنا فهم واقع انت انا لا افهم هذا والله idan aqliga darsa farkeetiga baasig darstay hun guriga la kariiday adihan adeegtay يا وسي سكونيا shuluqnimadiya iyo balaqshe iyo am shaqada meetaas oo badariito fadaas saaska انا لا افهم اي شيء ويسكا jiraan no problem dib male jahil wiska jira meel walba jooga dadka waxaba ugu jaahilsan boo aan la yaaba qof dhan oo magac leh oo xildhibaana ama wasiir waxaad arkaysaa walaal waxaan u maleynayaa inaad hadalka iska khasaarisay ninkaas beridweed aad baan uga xumaaday waayo sababtoo ah waa nin dhan oo dastuurkii uu gacanta ku haystay haddana inkirayo le hadalkaaga baa iska khasaarisay macnaha waxaad khasaarisay qodobkan meesha ku qoran muxuu ahay dastuuriga baad khasaarisay buu leeyahay sharci kama jiro wadankeena fahmaysa soo markaa hadalkii aan idinku badin in halkaas aan ku soo gabagabeynayaa tubaaka lansha la jara boy ma madahortiis magmal galaw koonfur jinka kimbiina adigna kaati in uu macnaha xataa mararka qaarsho hadii uu afmaymaygu uu ka hadalno oo kale nana er oo kale qabiil oo markii oo dadka maymay ku hadlo kale loo fiiriyo 15% aan 10% aan ahayn nalagu qabto oo nala yiraahdo af eelay that's no problem ana sameeyay ya uno sameeyay jinka koonfur kimbi adigna kaati uno sameeyay in macnaha asaasna nin koob uno dhan problemka anaga waay marka waxaan idin kula talinayaa dhalinyaro haddii aad maxaatiri tahay please discriminationka jooji haddii aad maymay tahayna please discriminationka jooji maxaatirigu waan baranaaye dadkiinan maxaatiriga ku hadlayo barta maymayga waad baran kartaan wax dhib badan maaha aad buu fudud yahay waad baran kartaan annaga maxaatiriga waan baranay ha u malaynina inaan u dhalanay ya uma dhalan iskuulka noo keenay markaan joogno kale wadankeena markaan joogno Soomaaliya markaan joogno waliba koonfurta markaan sii joogno waxaan nirahnaa afkii iskuulka maan ku hadlaynaa mise afkii hooyo waa dadka maymaygan sheegaya laakiin adu waxaad aaminsan tahay af maxaatiri inuu yahay afka hooyo soo marka aqoon dareen way iska jirtaa inaan wax isu sheegnana waa wax meesha ku jira qofna ma ataagayo Soomaalidu waa wada Soomaali waa wada jeclahay waa walaalahay meel walba ay jooganna qalbigayga ku yaalaan I love you guys aad baan idin jeclahay laakiin waxaan jeclahay inaan midowno dalkeeni oo xadaarad leh oo luqadeeni la wada fahmaya afkii maygi afkii maxaatiri wasaas isku dhaxgalay oo qofka ma isticmaalay maxaatiri isticmaalayo ayaana farxad gelinaysa waayo luqadda xataa way koraysaa waayo ma haysano wasaarad oo ma taqaanaa in afkeeni noolaysa ma haysano wax kuma baranno soo marka maxaatirigi baba sii zuulayaba markaan may warkiisaba daaba marka walisan lahaa please fadlan kadadaala inni usin maymayga deersidaan risaalada isku gudbiye maysin ka dhimay bas la siin ku qaaday oo ku dhaadhici hadii ku dhaadhici karto من سانواي ده انفسر marka ugu dambayso wuu baranaya waxaan waliba si fiican aan u fahmeen u ogaaday dadka waqooyiga shashadegan waa dad afka mayga aad u ixtiraamo jecel kuwa cawaandiya way ku jiraan oo fartoo xabaa laakiin waa dad aad u wanaagsan oo jecel afka mayga inay bartaan taas anaa huba waayo asxaabtayda oo dhan
raggaasay u badan yihiin aad bay u jecel yihiin afkan marka waxaan dhihi lahaa dooro qooro qobad biima ka waraabasa afkan maymaygana dadka ha ku qasbina idinkuna dadkiinan maxaa tiri ku hadlaya afkiina maxaa tiriga ha nagu qasbina laakiin meel dhaxaan isugu imaano hadday dani kugu jirto inaad maymay baratid baro hadday dani kugu jirto inaad maxaa tiri ay dani kugu jirtana baro labadaba isku wad labadaba waa afkaagi weliba marka aad labada luuqadood taqaanid waxaad noqonaysaa qof aftahana oo wax waliba luuqada iyo mataqaana siiqada luuqada fahmayaad noqonaysaa xitaa way kuu sahlanaanaysaa inaad luuqadaha wadamadan aad u qaxdeen oo qaxootiga aad ku tihiin aad si fudud aad ku barataan soo marka inaan annaga afkeeni aan isku cayno wax wanaagsan maaha Soomaaliya inaan isku dacaydeyno wax wanaagsan maaha haddii xitaa lagu sheekeysanayo in af Soomaaliga lagu sheekaysto oo maya waxaas tirada caalamkoo dhan way leeyihiin waxaa la yidhahdaa tongue twist me waxsaasaa la yidhahdaa afka qalaad laakiin ma aqaano inuu sax yahay in kale soo marka saas hadday tahay waa caadi tusaalahaan markaan kasoo qaado oo kale kelmad maymay oo kale oo tongue twist oo kale waxaan dhihi karnaa oo kale maxay ahayto fadhisuubsashooda tay oo kale micnaha aad bay u adag tahay I know fadhisuubsashooda tay dadka maymayga ah ma dhihi karaan badankooda ma fahamtay maxaa tiri waxay ku noqonaysaa fadhi hagaajiskayga aduu maxaa tiri waxay ku noqonaysaa maxaa tiri kale waxay ku noqonaysaa fadhi hagaajisashadayda saas oo kale noqonaysaa maymayna waxa waaye fadhisuubsashoodatay tongue twist waay waxyaabaha noocaas aan isugu imaano hadda kor waxaa dhacday gabar baan meel wada joognay afka wadanka aan joogaan wada baranaynay marka waxay tiri no kalmad biyo waaya biyo waa af qalad waa af Swedish marka waxaan iri biyo maxaa lagu yiraahdaa af Swedish markaasay tiri fatan waaye fatan le maahino markaas waxaan dhahay ha runtaw biyo markaas waxay tiri biyo maxaad ka wadaa biyo may ata macna biyo waaye aniga waan qaatay ad biyo maxaa ku diidaysaa macnaha sam shit waay maskaxdan ka xanuunsanay anaga xanuunsan ma fahamtay afkeeni anaguna soo baranin ba waxaan la yiri marka afaf kala barto dibadda taga that's why Soomaalidu markii qurbaha timaado wadamada ay joogaan afkooda marnaba aysan u baranba way koodiba isla weyni ka qabeen ma ku kale baranayaan qof maskaxdiisa furan tahay ma ahan magaalo dhan waxa arkaysa 3,000 4,000 ba magaaladan degan 5 qof 6 qof baa luuqada si fiican u taqaana inta kale waa bawsanayaan macnaha kiniini kuma iibsan karaan 10 sano in wadanka joogaan the problem is marka Soomaalidu marka ay luuqad marka ay noqoto ay sidaas ugu xun yihiin I don't know aniga ma aqaano laakiin waxaan qiyaasay inay kaliya tahay isla weynida soo marka isla weynidu ma fiicna qof afkiisii baran waayeyna oo asoo xamar jooga baran waayey afgooya luuqad looga hadlayo ilamaha inuu baranayo 3,000 oo kilomitir oo Sweden ama mataqaanaa Norway inuu baranayo that's waxa la yaab la waay Soomaali dhamaanteed waan wada jecelnahay min Somali Kenya, Somali Ethiopia, Somali Djibouti, Somali Waqooyi, Somali Koonfur kulligeena Soomaali baan wada nahay forget about racism forget about discrimination we are all Somalian soo marka aad baan idin salaamaya peace ishaydii ishan kaamirada isku eegimbe peace khairul kalaami ma qallo dalla aad baan idin salaamaya Soomaaliya ha noolaato